بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا وناكسن داود اللمانتين بهالكنا وتلفزيون كعالمي جاي هون كيبل تي في حرمتي سمجال هرجيسة داود اللي دلهانتي مقصود داود برنامج كنا هلا ذيك أو كم إذا برنامج هذا هذا نوكلات كده وطن تلفزيون كعالمي جاي هون كيبل تي في أنا جو برنامج كنا نهاد بقصوا عسونا السياسيين تقويان كوحجرات كي يجود هم بهالدور كبرشة الصومالي الآن قبل سمانتو عن كبر لنا سياسة دا وحنا نبيرنا يولي بدت كواوين أنت بدنا ورئيسين شلي السياسيين تقبل ما أنتو حنبيريا إن بال برنامج كهلا ذيك المركو جورس كوسوا عسومو قار كم إذا firfircoon ee Soomaaliland isla markaana waxyaabo badan u soo qabtay dhalinyarada kamid ah asaasayaasha ururada kala duwan ee maanta dalka ka jira ee mar walbana ku fikira in dhalinyarada wax badan u qabtaan horena u socdaan isla markaana ay muujiyaan in dhalinyaradu mar walba shaqo u abuuraan waxa maanta waxa aan raadna barnaamijka martiigu ah Ahmed Abubakar Maxamed waa nin dhalinyaro ah waxaanu muddo badan ka soo shaqeynayay hawlaha mutadawacnimada hawlaha dhalinyarada hawlaha samafalka iyo hawlaha kala duwan shaqeynta badan ee ka jira Soomaaliland waxa uu 2000 waxa uu kamid ahaa asaasayaasha ururo badan oo dhalinyarada oo ilaa haatan ka jira dalka 2003 waxa uu ku jiray asaasayaasha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo oo maanta bulshada Soomaaliland aad u wada taqaano 2009 waxa uu asaasay shabakada ugu magac daray SYG ee Somaliland Youth Group oo ugu talagalay in dhalinyarada qurbaha joogta iyo kuwa gudaha dalka joogaba ay wax badan afkaar kala duwan isweydaarsadaan isla markaana ay qayb ka noqdaan shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland oo inta badan ee shaqalaan baahsan ay ka jirto guud ahaanba dalka waxa imika uu ka howlgalaa hay'adda Save Children oo xubnaha sare uu kamid yahay hay'adda Save Children waxaanu sidoo kale uu asaasay naadigii saddexaad akhriska uu ka aasay magaalada Barbara isagoo markale naadi kale ka aasay degmada Sheekh oo ahaa naadigii ugu horeeyay ee laga asaaso degmo guud ahaan Soomaaliland Ahmed Abubakar waxa uu caawa marti u yahay barnaamijka haladeeg marka hore Ahmed waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka haladeeg ama santi kuraas adiga hon cable TV dadkana daawanayaan salaamay aad baad mahadsantahay Ahmed marka la nagana waxaan kaaga mahadnaqaynaa sida waqtiga qaaliga aad noogu soo hortay soo nagala qayb qaadato barnaamijkan haladeeg waa markii ugu horeysay qof dhalinyarada ku soo casuumay barnaamijka bal marka hore su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinay wax way muddo badan waxaad ka soo shaqeynaysaa hawlaha dhalinyarada kala duwan bal ilaa haatan maxaad oran kartaa hawlo nooceeya ama marxalado kala duwan nooceeya ay soo mareen shaqooyinka dhalinyarada iyo waliba hawlaha kala duwan oo soo qabatay bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan mahadsantahay mar labaad kuraasi hon cable TV isna fursadan caawina siina aad baan ugu mahadnaqayaa horta runtii waa taariikh dheer baan maray diraysaa dhalinyarada iyo waayihii halka soo martay ka warama anigu waqtigan dugsiga ka baxay ilaa imika inta waxaan ku hol jiray horta hawlaha horumarinta bulshada gaar ahaan dhalinyarada dugsigii hoose dhexe sare wax oo dhan berberaan ku soo qaatay markii dambe jaamacadda Camud baan waxbarashada sare u tagay haddana digriigii labaad Hargeysa ka qaatay jaamacadda Geeska imikana shahaada sare markaa ayaan sii wadaayay masterta runtii dhalinyaradu wax weyn oo xoog ugu weyn ee dalka Soomaaliland ilaa 70% baa lagu qiyaasaa marka la qiyaasayo in kasoo tiro koob sax lahaynin hadaan ka badnayn marka ilaa 2 milyan ama 2 milyan iyo badh bay noqonayaan runtii xoog inta la eg anagu markii aanu soo gaarnay heerka sare waxbarashada waxaan ku fikiray runtii in dhalinyaradu u baahan tahay runtii la abaabulo oo ay sameystaan marka groups ama dad isku xiran ururadii horeysay baan markaa ka bilownay wadanka kasoo qaar naga horeeyay jiraan ururadaas imika way jiraan si fiican bay u shaqeeyaan markii dadana kadib ururadii hadana ururadii dhismeena shaqeeyeen waxaan ku fikiray la sameeyo gabood dhalinyaradu isugu timaada ama dalad xiriiraan tii markaas Soonya la sameeyay runtii oo noqotay markaa gaboodkii dhalinyaradu isugu imaneysay 2003 markii la bilaabay bishii lixaad waxay runtii dhalinyaro kooban baa la isku keenay oo gobolada kala duwan ka socota asaaskaas markaa runtii u adka wax kastoo la bilaabay runtii waa adag yihiin laakiin saddex ujeedin baa beriga dalada markii la sameeyay laga lahaa ilaa imika runtii saddexdii ujeedin bay u taagan tahay oo kala ahaa runtii dhalinyarada isku xidh loo sameeyo meel dhalinyarada isugu timaada la helo in dhalinyarada runtii u doodo xuquuqda dhalinyarada ee dalada u doodo iyo in dhalinyarada wixii wax lagu qaban karay xagga capacity dhisitaankooda marka shaqo dhinaca qalabka iyo dhinaca xirfadaba noqoto marka intii umada dalada imkana ka shaqeysaa aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa marka maamuladii kala duwanaa dalada soo maray hogaamiyaashii ilaa kuwa imika jooga runtii shaqo fiican qabtay oo xaruntii dhalinyarada daladana aan suurtagelin la dhiso aad baan uga mahadnaqaynaa waxyaalaha ugu waaweyn runtii la xusi karayna wax kamid ah runtii dhalinyarada in la siiyay markaa fursad ay kaga qayb geli karayaan dhinaca markaa siyaasadda oo tusaale ahaan oo kale
oo markii horeysay runtii sanadkii hore markii doorashooyinka loo ogolaaday 2000 dadka da-doodu ka yar tahay 5 ilaa 25 ilaa wax ka sareeya ay ka qayb geli karayaan golayaasha deegaanka dadaal dheer buu runtii ahaa oo laga soo bilaabay ilaa 2007 ilaa imika soo socday xukuumadda maanta talada haysay Axmed Siilaayo madaxdu yahay waan ku maamaana runtii ugu mahadnaqaynaa inay ansixiyeen xeerka runtii ay dhaqaajiyeen golayaasha baarlamaanka iyo markaa guurtida iyo wakiiladan iyagana doorkooda runtii waan ku amaanaynaa kuwa ugu daran runtii guurtida ahayno dadka waaweynaa jeer waxay iska yaqaanaan dhalinyaradu inaanay waxba qaban karayn nin yar intuu tale ka boodo geed ka boodo Soomaalidu ka maamada markaa maamaha hore bay runtii ay de aad runtii nagu soo qaadan jireen aakhirkii laakiin de waan ku qancinay in dhalinyaradu runtii wax qaban karayso marka iyagana nimanka odayaasha guurtida kolay warwarkooda wuxuu ahaa dhalinyarada aan waxba qaban karayn laakiin maanta inay arkeen baan u malaynaya waxa maayirada waddanka ka jira wada dhalinyaro waxqabadkay muujiyeen iyo si magaalooyinka wax weyn uga bedeleen maayirka caasimadda oo kale maayirka Boorama maayirka Odweyne iyo maayirka Berbera laftiisa oo nin dhalinyaro marka waxaasna wada arkaysa isbedelkay runtii muujiyeen Axmed waxaad ka mid tahay asaasiyaashii dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo sidee buu ku yimid markii hore fikirkaas asaasitaanku ama inta badan dhalinyaradu haatan waxay isweydiiyaan dhalinyaro badan oo arkay cabashada ugu badan dhalinyarada ka soo baxda waxay isweydiiyaan su'aalaha xaggee isugu yimaadeen guud ahaan dhalinyarada Somaliland ee lagu doortay Soonyo su'aasha ugu badan isweydiiyaan taas labada asaasiyaasha ka mid ah adana su'aasha samad ku taala horta waa mahadsantahay waxa weeyaan Soonyo horta waxa fikirkeeda bilaabay markaa runtii marka taariikhda laga hadlayo waa iska adag tahay waayo dadku taariikhda qof walba wuxuu jecel yahay inuu isagu jecel yahay u sheegto laakiin waxa weeyaan dad dhalinyaro baa runtii bilaabay oo waqtigii markaa ay bilaabmaysay fikirkan lahaa waliba reer Hargeysa oo badnaa markii isku yimaadeen structure-kii sameeyeen waxa markaa door bideen inay gobolada tagaan markaa gobolada intay tagaan ay ka hadlaan markaa sidii gobolada lagu soo dari lahaa marka waqtiyada u horeysay anaga fikirka cidii noo timi Berbera noogu timi waxaan garanayaa Khadra Kaliil iyo nin kale Cumar la oran jiray markii dambe halkan nimid dadkii hawsha wadayaan la bilownaa anaguna hawsha isla galnay wax kamid ah markaa Cabdiraxmaan Gooni la yiraahdo Maxamed Xasan Saciid Khadar Nuur Ibrahim Suldaan dad badan oo noocaas runtii fikirka markaa ka qayb qaadanayay najax la yiraahdo isna Karwaande jooga markaa dad badan runtii halkan aan qaar badan ka ilaaba laga yaabaa sababtan u diiday markaan magacada sheego intaan sheegay markaa yeen kala badan runtii way ka qayb qaateen asaaska markaa runtii horta wax kasta marka la asaasay ugu adag alxamdulillah horta aakhirkii asaaska si fiican buu dhacay kulan 7 cisho socday baa ambassador la sugu yimi oo bilaabmay 9 May ilaa 6 March xeer ilaa 6 June xeerkii dalada lagu ansixiyay hogaankii horreeyay baa lagu doortay si fiican bay u dhacday ujeedinkan ku sheegay runtii saddexda ujeedin bahayd waan maqlay runtii imku jiraan dhalinyaro badan oo ka hadashay anu shakhsiyan markaan eegay waxa dhacda dhalinyarada kale jecel ka hadashinaysa qofku waxa weeyaan cidii isaga matalaysay inuu ka hadlo dhaliil u sheega runtii way wanaagsan tahay inkastoo qaar badan oo kamid ah qaabka dhaliisha u gudbinayaan mararka qaar ay warwari geliso waayo heerka maanta dhalinyarada Soomaaliland taagan tahay iyo runtii expectation-ka laga filayo aynu ku doonno hogaanka dalka in dhalinyarada qaar dhaliisha si noocaas u soo gudbiyaan ida lafteedu waxa weeyaan niyadjab dadka iyo dadka ku noqonaysa laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofka horta xogteenu helo ugu muhiimsan waayo xog la heliyaa hor la hel baladi marka qofku xogta markuu helo wuxuu fahmayaa daladu say tahay 2006 dadkii asaasay maanta qaarkood waxa laga yaabaa dalad inaanay joogin oo dad kale ayaa hogaaminayay taas horta ku sheegaysa Soonyo qaabka ay u samaysan tahay dad badan oo maanta dhaliilayana inay bari hogaankeeda horta kamid noqdaan baa laga yaabaa meel madal cid gaar leedahay maaha daladu waa dad wax dhalinyarada ka dhaxeeyeen oo haday noqoto xagga doorashadeedu waa dimuqraadiya qaabka loo soo galaa waa qaab cad oo runtii xeeriyo xaqiiqaya nidaamyo anu laakiin waxaan ka misaalayaa marka laga hadlo Soonyo qofka dhalinyarada caadiga oo eegayo waxay ku qabatay markuu isweydiiyo runtii waxa muhiim inuu eego kow horta de arrintiimkan ka hadlaynahay dhalinyarada in loo ogolaado in ay siyaasadda galaan xuquuq runtii naga maqnayd baa ahayd iyadana markaa waxa waa guul ma runtii loo kala taaban karo taana Soonyo runtii dabada ka riixis marka xaqiiqda laga hadlayo guusha inta badan marka dhacdo la wada sheegtaa
laakiin inta dagaalka lagu jiro istaragalka iyo dadaalka la wado inta badan cidda kaala qeyb qaadanaysa way iska yar tahay cid kastoo ka qeyb qaadatay xukuumadda iyo baarlamaankana marka waan uga mahadnaqaynaa arrinta kale runtii muhiimka waxa weeyaan iyadana ay daladu soo kordhisay inay daladu tahay markaa meel matalaysa magaca dhalinyarada oo forumska markaa laga doodayo xuquuqda dhalinyarada iyo shaqo abuurka lagaga hadlayo cidda ka hadasha runtii waa dalada weeyaan siyaasadda qaranka oo kale la sameeyey dalada dabada ka riixaysay siyaasadda qaranka waxyaalo badan bay ka hadlaysaa waxbarashadii bay ka hadlaysaa dhalinyarada teknolojiyadda iyo dhalinyarada ka hadlaysaa xagga ICT-ga maadaama dhalinyaro badan iminka isticmaalaan IT-ga iyo ICT-ga waxay ka hadlaysaa sidii laisugu xidh lahaa kobcinta garaadka dhalinyarada runtii siyaasaddu ka hadlaysaa siyaasaddii markaa sameynteedu waa adagtay magac marka laga hadlayo siyaasaddu wax fudud laakiin marka la sameynayo waa adagtahay waa lasoo sameeyey shaqo badan baa naga soo gashay haddana labin baa loo galay iyo dadaal sidii loo ansixin lahaa iyada lafteeda markaa dowladda ugu mahadnaqayna waa la ansixiyey fulinteedii baa markaa imika bilowa oo sanduuqii horreeyay dhalinyarada wata la sameeyey sanduuqii markaa madaxweynuhu lacag buu ballan qaaday inuu ku shubo hay-adihii iyaguna kusoo shubayaan lacagahaas marka ay kusoo dhacaan markaasay bilaabmi doontaa implementationkii markaa saxda ahaa ee fulintii markaa siyaasaddu dhalinyaro fara badanna markaas taaban doontaa laakiin runtii wax badan bay dhalinyarada loo qabtay isku xidhkoodina runtii kor bay u qaadaan filayaan dalada waana runtii dadka kale dhaliisha sheegayana waxaanu jeclaan lahaa dhaliisha inay runtii wadada saxda usoo maraan laakiin qof kasta xor buu yahay xaqna uu leeyahay inuu cabiro dareenkiisa laakiin dhalinyaro fara badan saan sheegayay waqti badan waxay geliyaan in dhaliisha ay qaab caaya ka dhigaan marka waqtigaa badan ay gelinayaan hadday si qurux badan uga faa'iideyn lahaayeen runtii wax badan baa ayaa dhalinyarada usoo kordhi lahayd shakhsigaasuna kule naftiisu ayuu hagaajin lahaa axmed dhalinyaro badan waxay ku doodeysaa in soonyo ay noqotay wax kooto loogu xidhay magacii dhalinyarada oo dhan oo aanay abuuran karin dhalinyarada kale ururo kale ama dalado kale aanay abuuran karin qaabka noocaasa idinka markaad asaaseen ma idinkula jirtay ma idinku muuqateen saa dhalinyarada qaar ay u fikri karaan horta waa deerto dalad kale waa la sameyn karaya meel dastuurka Somaliland baa dalka ugu sareeyo kagama qorno meelna dalad lama sameyn karayo laakiin waxa qurux badan dee wixii jira runtii qofka inuu xoojiyo maanta Soomaaliya halkan 10 sano kusoo gaadhay dee halkaad wax cusub bilaabi leedahay tan xoojisa yar qurux badan wax badan daladu way qabatay laakiin mid ka hadlay wax weyn qaabka dalada loo soo geliyo waa qaab cad weyn mustaqbalka waxa la doonayaa dhammaan horta dhalinyarada dhan 2 milyan iyo barkaan sheeganay dalada intay wada galaan memberka ma noqon karaan hoggaanka ma wada qaban karayaan se dowladda laftooda wasiir lama wada noqon karayo madaxweyne lama wada noqon karayo laakiin ciidan baa ayaa hoggaanka u qabanaysa dhalinyarada marka daladii Soomaaliya maanta cid gaar ma laha urura ku jira runtii marka qofka dhalinyarada doonaya inuu dalada noqdo horta marka hore urur xubin ka noqda ururkaas marka kadib marka dalada soo codsanaya geliya daladana membershipkeedu furan yahay kadib deetana ilaa jaranjarada u sareysa heerka u sareeyo gaari karaa inaanay dee Hargeysa qodho ku koobnaysa dadka qaar sheegeen waxa cadeyno ah anigoo berbera ka tartamiyay ayaa dalada hoggaankeedu u tartamay 2010 dhamaadkiisii December markii horeysay qof gobol ka socda uu tartamay noqotay hal cod baa laga helay dadna waan ku tanaasulay antaas waxay ku sheegaysaa yani dhalinyarada lafteena kortay daladu heer dimuqraadiya gaadho runtii codadka aad ku yar hal cod in lagu kala tanaasulaa runtii aad iyo adag tahay doorashada markaan gelaynayna runtii min sayla ilaa la saacano doon tagno sida caadiga campaign-ka madaxweynuhu markuu tartamay ay kala haydo anagu de odayaashii iyo madax dhaqameedka lama kulmin laakiin waxa la kulmay dhalinyarada iyo ururadaas aan la kulmin cod weydiisan aan barnaamijkayga u sheegin marka Soomaaliya madal baan leeyahay ka faa'iideysano fursad baynu runtii aynu kaga qayb geli karnaa caalamka iyo barnaamijyada ka socda waxaad ka mid ahayd aasaasayaasha ururka SYG muxuu ururkaas micnihiisu SYG waa waxa loo soo gaartay Somaliland Youth Group fikirka markaan keenaynay horta waxaan ugu muhiimsanaan ka eegay waxweeyaan informationka xalaamo xogta waa muhiim weyn dadkeenuna ay jeer waa dad oral society oo af Soomaaliga hadal un baa soo gudbin jiray maadaama dhalinyarada markaa aqoon baratay oo technology-ga casriga isticmaalayso dadka wada email iyo internet iyo social network fara badan jiro waxaan ku fikiray markaa in la sameeyo meel dhalinyaradu laftooda Somaliland gaar ahaan ay isku weydaarsan karayaan xogta iyo macluumaadka marka xogtii macluumaadkii ma kala maarmayaan qofkii marka dee uu doonayay inuu horumar gaadho inuu xog helayo macluumaad waxyaalaha markaan aad xooga u saaraynay marka taa xogta laga tago wax ka mid ah xagga shaqo abuurka ayo gobolada faraha badan aan soo maraynay waxaan ogaanay dhalinyarada qaar inaanay helinba xogtii xaq u lahaayeen
oo inanka maanta ceer gaabo jooga ama baran jooga ama buuhoodla jooga ama saylac jooga waxaa laga yaabaa inaanay gaadhinba markaa jaraadida waddanka ka soo baxa ee macluumaadka iyo shaqooyinka waxyaalaha kale lagu qoro inaanu haysanin baa laga yaabaa markaa fursad uu runtii ku heli karayo markaa tiyan oo ka fekerayna runtii waxaan aada u sameynay mareegtan oo email grouba si qof kasta markaa emailkiisa ama inbogoskiisa ay ugu tegi karayso kii markaa helaa xogta waxaan kusii dhiirigelinaa inuu usii gudbiyo dhalinyaro kale markaa magaalo yaroo dee doono baran oo kale dad badan internetka isticmaalaanay joogin laakiin 2 3 qof 10 qof 20 qof oo isticmaal ay jiraan markay fariintan helaan oo shaqooyinka maanta shaqa jaraydka Hargeysa lagu xayisiiyay ay helaan oo barinta garanaya oo daabacaya intaasoo kale dhalinyaro la wadaagay dadna waxay taas keenaysaa inanka Hargeysa degan caasimadii Soomaaliland jooga iyo inanka jooga markaa magaalo kale oo Soomaaliland geeskeeda inay si siman markaa xogtii xaq u lahaayeen ay u helaan sidaas leeg markaa dhalinyarada caalamka joogtay reer Soomaaliland iyagana xogtii ay u baahnayeen si leeg bay u helayaan xalaa kale soo jeeyo sameeyay wax kamid ah in markaa doodaha lagu sameeyo oo laga dooday yani waxyaalaha jira waxyaalo badan baa laga dooday berigii guurka $150 ee wadaadadu soo jeediyeen in laga dhigo kale dood badan baa runtii ka dhacday mareegta doodii ugu badnayd baa ka dhacday waxyaalahaas markaa runtii siyaasadda kale mar qaar lagu doodaa dad siyaasiyiin ku jira fikrado badan baa la soo deersay itraafka laga hadlaa waxyaalo badan baa laga hadlaa hadana interaction bay noqotay ama isku xidh u dhaxeeya dhalinyaradii dibadda kuwa gudaha kuwa gobolada oo qofku subaxii halka intuu iska soo fadhiisto oo ogaanaya markaa macluumaad farbadiyo waxyaalaha magaranaysa xataa xagga scholarshipka lagu soo xayisiiyaa qofku ka heli kara fursado badan aanu dhalinyarada badan baan garanaya la soo dhameeyay ka badan oo shaqooyin dibadda waxbarasho dibadda helay SWG email ay soo diray oo maadsantahay inta shaqo heshay gudaha iyo dibadda runtii aydaas ka badan tahay ilaahay waa mahad leh laakiin isku xirkaas runtii keenay dhalinyarada faraha badan ee fursad shaqo SWG markaa waa madal si wanaagsan u socota tirada dadka ku jira waa ilaa 6,000 bay gaarayaan marka maalin kasta lagu soo biiraa waa si kordhiyo balaaradii shabakada caalamiga si noqonaya dadkii markaa igala shaqeeyay runtii aadka shaqada badan igala geliyay Ibrahim Sultan oo kale Yusuf Qalib Nilada Farxaan Xidig Farax Galbeedi dhalinyaro badan noocaas ah xamda dad badan noocaas markaa iga caawiyo ila shaqeeyay runtii waan u mahadnaqayaa aakhirkii taas waxay keentay markaa sanadkii hore 2013 bishii February in la guddoonsiiyay markaa shahaadadii markaa qiimaha qofkaaga dhalinyaro fara badan markaa reer Soomaaliland u mahadnaqayeen iyo codeeyeen oo ay doorteen markaa igu codeeyna noqday kamid noqday hal doorka Soomaaliland iyadana markaa runtii dhiirigelin badan weyn bay ahayd oo loo dhiirigelinayo qofka runtii markuu wax qabteen mahadsanid marka lagu dhaado inaad sii wado runtii ku samaxaysa adiga shakhsiyan muddo badan dhalinyarada iyo horumarkeeda ka shaqeynaysa dhalinyarada maxaa la taaban karaa oran karnaa Axmed waxay dhalinyarada qabtaan ku xasuusan kartaa markay imka tan SWG-dan laga tago walahi horta dhalinyaro badan baan horta aan horta waxyaalo badan isla qabanay baa jira dad fara badan runtii anagay garanayaan runtii waxaan qabtay way garanayaan iska adagtay marka qaar la weydiiyay maxaad qabatay oo qof waaniya lagu arkayaa laakiin qofka kale runtii sheegi karaya waxaad u qabatay inkastoo markaa aan isleeyahay waxyaalaha yaraad qabatay wax kamid ah dhalinyarada inaan runtii ku dhiirigeliyay horumar sameeyaan inaan si mutadawacnimo qof kasta wuxuu runtii si shakhsiga baahdaan aan u qabto ururo fara badan oo waddanka maanta ka shaqeeyeen oo asaaskoodii aan markaa kaalin ka qaatay xagga markaa xirfadaha ana runtii aan dhalinyarada aad uga taageeray waqtigan macalinka aan runtii dhalinyaro fara badan oo aan u dhigay dugsiga sare macalin uga ahaan wajahno maanta waddanka runtii meelo fara badan oo Facebook iyo isku aragno runtii macalin aad baad maasantay oo si wax nagu soo dhigi jirtay runtii aan ka wada hadlo runtii arrimaha kale guud ee daladaha iyo ururada aan sameynay SWG-da iyo arrimo badan oo imika hay'adan Sawir-Jidran kala shaqeynaa waxbarashadana waxyaalo guudood qof kasta runtii taabanaya oo si guud markaa dhalinyaradu wada gaadhaya laakiin taas baan u xoogaysana dhalinyarada isku xirkooda iyo hamiga dhalinyarada runtii kor loo qaado la gaarsiiyo markaa heer aan la tartami karno markaa dhalinyarada caalamka ee la midka marka nin maadno naadiga akhriskaad ka aasaastay ee magaalada Berbera iyo waliba degmada Sheekh halkeen ma ku dambeeyay labadii naadi horta naadiyada akhriska markii horeysay waxa la aasaasay halkan 2006 baa laga aasaasay Hargeysa naadigii horeeyay markaa Berbera Hargeysa Readers Club loo oran jiray naadi kale markaa ku xigay 2 sano kadib naadigii markaa laga aasaasay Boorama
hal karaan waxaa la odhan jiray maskax maal anagoo markaa ku dayanayno markaa fikirka quruxda badan ay bilaabeen naadiga akhriska ee markaa Hargeysa isla markaana dhiirigelin markaa xagga niyadda iyo taageeraba ka helnay markaa jaamac muuse doctor jaamac muuse oo nin aqoon-yahan ah waxbarashada iyo runtii akhriska aada u taageero barnaamijkan book fairkana hogaamiya runtii anaguna aan ku dhiirin inaan berber markaa ka bilowno January 2009 markaa ujeedada kalena waxa weeye dhalinyarada in laga mashquuliyo markaa balwadaha iyo markaa waqtigooda kaga lumaya meelaha maqaaxiyaha iyo meelaha runtii ku habboonayn waxaan ugu talagalnay markaa in dhalinyaradu ay fursad u helaan inay akhriyaan macluumaadka marka oo maxaa adduunka ka dhacay history maxaa cashiradooda runtii xagga academiga qaabilsan maxaa markaa adduunka iyo Somaliland iyo isugu xirmay waxyaalo badan runtii qofku markuu akhriyo wuxuu gaadhayaa markaa heer qofku markaa maskaxdiisa uu isticmaali karay isaguna aakhirka markaa qof wax qora uu noqon karay markaa wacyigelin bay dhalinyaradu ahayd in laga wacyigeliyo markaa waxyaalaha aan u wanaagsanayn tii markaa midho dhal bay noqotay naadigii berberi si fiican buu u shaqeeyaa halkan uga tacsiinaya markaa marxuum Idris Xuseen Cabdullaahi waa markaa xiriiriyay horreeyay naadiga markaa berberi Diris Club oo geeriyooday Allah u naxariisto nin qaali ah ilaahay qabriga u nuuriye markaa naadigii si fiican buu imika u shaqeeyaa naadigii sheekh laftiisa isna uu shaqeeyaa inkastoo firfircoonidiisu ay yartay laakiin si wanaagsan buu isna u shaqeeyaa intaa wixii ka dambeysay markaa naadigii Burco la sameeyey naadigii halkaraan Burco anfac argaaban markaa naadiga la soconaad naadiga badan baa markaa ayaa sameysmay oo wadankii ku baahay ka taas waxay dhalisay markaa dhalinyarada inay akhriska maanta buugaag fara badan baa Hargeysa lagu akhristaa qaar badan baa Soomaali lagu qoray hataa dadkii wax qorayay baa dhiiriday oo qoraal badan sameeyay maadaama ay arkeen dad fara badan wax akhrisanaya oo ka faa'iideysanay Axmed marka laga tago hawlaha dhalinyarada muddada badan ku soo dhex jirtay iyo waliba iminka hawlaha waxbarashada ahayd sabshiltanaad la qabato qayb ka tahay muddo inta lag badan ku sii jira ama mas'alada marna u gudbin dhinaca siyaasadda adag badan dhalinyartay horta iminka siyaasadda kuma jiro arrimaha bulshada ka shaqeeya laakiin mustaqbalka waxa isleeyahay maadaama nin badan arrimaha bulshada ka soo shaqeynay kulli waa muhiim baan filayaa si dhalinyarada loo muujiyo awoodooda oo halkan u socon inay tahay markaan talada dalka aanu ka qayb galno waxa isleeyahay mustaqbalka insha Allah siyaasadda ka qayb gashid ilaa halka u sareysa dad waddanka madaxweyne ka noqdaan rajaynaya insha Allah haddii la igu guuleeyo markaa laakiin waa waqtigeedii markii gaadho waayaheedaan u diyaar garoobi doono insha Allah kulli jarjarooyin bay leeyihiin siyaasaddu diyaar muuta jarjarooyinkeeda kala duwan ama waagnimo intee leg ama siyaasadda caadiyan maxaa u taqaanaa siyaasaddu marka hore inay tahay kulli horta maanta waa aragnimo fara badan baan haysanaa haddii akhris noqotana runtii wax badan baanu siyaasadda ka akhrinay iyo buugaag fara badan iyo caalamkan iyo wararkan oo la soconaa Somaliland runtii siyaasadeedan oo la soconaa anigu waxaan xoog saarnay runtii wax weeyaan maadaama dhalinyaradu ay maanta aqoon baratay xogna heleen inay muhiim tahay markaa inay talada dalka qabtaan siyaasigiisana markaa jiraan jireeda kala duwan golihii deegaanka aanu ka bilownay baarlamaankii golaha wasiirada runtii aan rajeynay inuu dee ay ka muuqan doonaan dhalinyaradu iyo markaa halka u sareysa runtii dhalinyaradu inay qabato runtii waa muhiim weyn waayo caalamka kale markaad u fiirsato markaa dhalinyaro fara badan baa markaa xilal sarsare haysa dalkeena Soomaaliya laftiisa markaa dib taariikhdiisa hore ugu noqoto 60kii dee madaxweynaha geeriyooday Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Jiraan Cigaal dee daadiisu aad bay u yarayd oo maanta dee annagaba ka weyneyn baa la odhan karaa waqtigaa markuu xilka hayay siilaan iyo madaxweynaha imika laftiisu waqtigii uu wasiirka ahaa ee dowladdiisa aad baray dee daadiisu aad bay u yarayd marka waxyaalo badan baad runtii dareemaysaa in dhalinyaradu ay wax qaban karayso una baahantay markaa stagekeeda markay gaadhaan lagu aamino waddanka marka maanta waxaan isleeyahay dhalinyaradu way gaadheen heerkeedii hogaankana way qaban karayaan waxaan rajeynayaa insha Allah mustaqbalkeena anuguna ka qayb qaadan doono si wanaagsan waxaa tahay markaa xiga aqoonyahan baatay wax badan oo ka ogtay siyaasadda caalamka iyo siyaasadda Somaliland inta badan dhalinyaradu waxay si xoog ah u dhaliilaan in siyaasadda Somaliland ay hegaan odayaal qofka shaqo doonaya qofka xil doonaya qofka caynka doonaya inuu suldaan iyo oday soo maro bas aan lagu qiimeynin shahaadooyinkiisa kala duwan iyo aqoontiisa uu soo bartay marka taas aad barbar dhigto aad ma adeegtaba taa odayaasha seebas la ugu suurtagelisay wala horta dhinaca daliga in la dhaliilana ma aha kulay odayaashu waa kuwa halkan soo gaarsiiyay waddankeena maanta Somaliland
sidaa Soomaaliya oo karto runtii burbur gelin hadii odayaasha laga tagi lahaa marka kaalinta odayaasha runtii dhiirigelinayna waan amaanaynaa laakiin waxaan u baahanay dhalinyarada lafteedu waqtiga wala soo dhaafay imika runtii oday la kaxaysan jiray maanta aqoonta runtii shaqeynaysa dadka waxbay barteen siyaasiyiinta imika talada haysiyo kuwa soo socdaba waxaan rajeynayaa in markaa maskaxdooda ka bedelaan runtii qaabkii hore lala dhaqmi jiray markaa odayga la mariyay markay noqoto weliba xagga dad xirfadda leh wax qabanaysa in qofka lagu qiimeeyo runtii wax qabadkiisa iyo qaabku runtii wax u qaban kara in lagu qiimeeyo dhaliisha guud way jirtaa oo mararka qaar waxa soconaysaa dadkii 60kii wadanka talinayay stiil ka talinayay mararka qaar aad soconaysaa inkastoo waa aragnimada iyo khibradda dadka loo baahan yahay haddana waxaa muhiim ah dhalinyarada in fursadii la siiyo ay kaga qayb qaadan lahaayeen iyadoo markaa dhiirigelin wax kastoo dhalinyarada loo qabtay runtii ma dafreeno wixii dhalinyarada loo qabtay dawladdan u qabatay cid kastoo kale u qabatay waan dhiirigelinaynaa laakiin weli lama gaarin baan leenahay runtii halkaan u baahnayna ma hamigayga halku ahaa runtii dhalinyaradu kama muuqato si guudna haddaad u eegto maanta dhalinyarada Soomaaliya runtii caalamka ku xirmeen imika waxaa jira safar agaasimaha dalada Soomaaliya ugu maqan yahay Mareykanka 10 qof African leaders barnaamij loogu talagalay madaxda dhalinyarada inay kaga qayb galaan caalamka oo Mareykanka oo kale tusaalaan soo arkaan qaabka uu shaqeynayay iyo la kulmaan waxyaalo kala duwan runtii u tagay taasoo kale runtii wax weyn bay muujinaysaa warbixinooyin ka soo diray dad eegto madaxda marka la kulmo marka hore wax kala hadlayay qadiyada Soomaaliland ma taqaanaan qaabkooda la shaqeynaysaan dhalinyarada Soomaaliland baahiyahaas ay qabaan maxaad kala qabanaysaan marka in platformkii caalamka dhalinyarada Soomaaliland laftooda tageen oo guulna soo hooyatay ma leeyahay waxaan muujinaysaa marka dhalinyaradu inay gaadheen marka heerkii marka ay wadanka laftiisa marka hogaamin kar lahayn guntiga gabagabada barnaamijka Axmed maxaad guud ahaan dhalinyarada bulshada Soomaaliland ugu baaqaysaa horta runtii waan ugu baaqaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan shacabkeeda waxaan ku bogaadinayaa marka nabadeen haysano waxaan ku dhiirigelinayaa nabadeen ay laasho way wax kasto jira marka nabadda ugu qaalisan daana nabadi jirin marka waxbarashada jirmayso dhalinyarada jirmayaan dawladnimada jirmayso horta nabadeen inaan laashano talabaadna marka inaan runtii isku duubnida bulshada runtii waa muhiim weyn maadaama in ictiraaf caalamka doonayna waxay ku xirnaanaysaa markasta marka qaabka aynu marka inagu isugu xirnaano dhalinyarada si gaar ah waxaan ugu soo jeedinayaa marka qof kastoo dhalinyaro inuu aqoontiisa kor u qaado waayo markaad aqoontaada iyo naftaada dhisto aad bulshadana runtii wax u qaban karaysaa waxaana si gaar ah usii dhiirigelinaya lafteedana waqtiyadana ka mida marka qof kastoo dhalinyaro inuu siiyo marka wadankiisa waqti oo haddaad magaranaysaa inaad wax ka qorto wadankaaga dad shaqo markaa mutadawacnimo bulshada u qaban karayso waxaas runtii waajib qofka bulshada saaran weeyaan waxaan kaloo markaa soo jeedinayaa marka dhalinyarada iyagu qurbaha ku nool laftooda qurbaha waxaa loo tegayaa runtii waa hal qodob baan waan isleeyahay in aqoon laga soo barto marka markaan isku ilaabinoo dee wadankoodii maaha aanay sii joogin marka aqoontaas soo qaadaan iyo khibraddaas inay wadankoodii kusoo celiyaan insha Allah waxaan rajeynayaa marka waxaan runtii fursadda uga faa'iideysanaya iyaga laftooda inaan u mahadnaqo marka golaha deegaanka Sheffield ee Soomaaliland ictiraafay iyo marka qurba joogta reer Soomaaliland ee magaalada Sheffield ee runtii iyaguna ka shaqeeyay arintaas aad baan u dhiirigelinayaa wasiirka arrimaha dibadda isna booqday wasiirada kale way mahadsan yihiin waxaan rajeynayaa wadamada kale marka qurba joogta inoo joogta waxaan tabaynay runtii weeyaan inay ka shaqeeyaan sidii xagga hoosabaasha laga soo bilaabay dadkaas inoo aqoonsanayaan inoo ictiraaf lahayn guud ahaan doorantaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkeeni haladayga hadahan oo kala aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable TV sigoo toddobaadkan martiigu ah Axmed Abubakar Maxamed oo muddo badan ka soo shaqeynaya howlaha horumarinta dhalinyarada iyo waliba adeegyada kala duwan ee bulshada kana soo hawlgalay aasaasidda la shaqeynta taabagelinta ururo badan oo dalka ka jira naadiya akhris iyo waliba mareeyo kala duwan dhalinyaradu haatan ay ku kulanto markale Axmed waxaan ugu mahadnaqayaa si waqtigiisa qaaliga ah ugu soo horeysay uga qayb qaata barnaamijka haladayg ee sawiradaas quruxda badan waa duubistii injineer xasan siyaad iyo waliba habeyntii isku dubaridkii cabdirasaaq maxamed ibraahim daawus yani waa kuraasaha barnaamijkan mid lamid ah intaan dib u kulmi doono waxaad iga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.